wararka ugu weyn maanta dhanka iyo xanta suuqa kaliibsiga BBC-da dhankeeda gosobka waxyaabaha ugu weyn maanta ay daabacayso magacyada ugu weyn waxaa kamid ah N'Golo Kante, Mario Mandzukic, Oliver Giroud, Gareth Bale iyo Jose Mourinho. sheekooyinka ugu weyn waxaa kamid ah nadiga Real Madrid ayaa markaan qorsheynaysa in 86 milyan ay ku iibiso ciyaaryahanka 18 jirka reer Colombia ee qadka dhexe ugu ciyaara James Rodriguez kaasoo iminka u gacan haatinaysa kooxda Chelsea waxayna rabtaa inay ka soo qaadato ciyaaryahanka dhacdada koobka adduunka ku guuleysay N'Golo Kante ee ku bedeltay ciyaaraha James Rodriguez waxaa sidaas maanta daabacaysa majalada lagu magacaabo Sports Witness in kooxda Real Madrid waxay markaa qoordareynaysaa ciyaaraha N'Golo Kante ee keento garoonka Santiago Bernabeu ayna sidoo kale iskiibisay ciyaaraha James Rodriguez. sheekooyinka ugu weyn waxaa kamid ah kooxda Juventus ciyaarahankeeda weerarka ku ciyaar Mario Mandzukic ayaa markaani uu raba inuu ku biiro kooxda Manchester United ayuu xidigan rabaa in uu iskaga biiro kana hayaamo horyaalka Spain aan raad Talyaaniga waxaa sidaas daabacaysa ESPN United ka ayaana muddo dheer raadinaysa ciyaarahanka weerarka ugu ciyaara kooxda Juventus Mario Mandzukic u dhashay dalka Croatia. si kastaba United-ka waxay markaani ku dhawdaan in bisha January si amaah ama si free ku soo qaadato ciyaarahankan Madrid ayaana sidaas daabacaysa macalinka hogaamiyaha kooxda Arsenal Unai Emery ayaa markaan eeganaya in safkiisa uu ku soo diray ciyaartoy badan markuu suuq kale iibsiga furmo. Atletico oo soo xiganaysa Mirror ayaa sidaas daabacaysa. sheekooyinka Tottenham Hotspur ayaa markaan lagu soo waramaya in ay markaan u gacan haatinayso macalinka hore kooxda Chelsea Manchester United Jose Mourinho kaasoo iminka shaqo la'aan tan marka laga ceeriyo kooxda Manchester United waxaana markaan rabtay inay bedel ugu dhigto macalinka reer Argentina Mauricio Pochettino sida ay maanta daabacayso Express. Chelsea ciyaarahankeeda weerarka ugu ciyaara Oliver Giroud ayaa markaan qorsheynaysa iskaga hayaamo kooxda Chelsea kuna biiro kooxda Inter Milan oo horyaalka Spain Talyaaniga ka dhisan sidoo kale macquul ay tahay horyaalka Mareykanka inuu ciyaarahankan ku biiro ayaa sidaas daabacaysa maanta. xidig qadka dhexe kooxda Real Madrid Luka Modric ayaa dhaabac soo gaaray sidoo kale Gareth Bale waa macquul in iska sii joogo kooxda maadaama uu hanaan wanaagsan soo bandhigay xilli ciyaareedkan. Independent ayaa sidaas qoraysa wararka ugu weyn ayaa Crystal Palace ayaa aad u xiiseynaysa ciyaarahanka weerarka ugu ciyaara kooxda Inter Milan ninka lagu magacaabo Gabriel Barbosian kaasoo iminka si amaah ugu jooga kooxda Flamengo oo horyaalka Brazil ciyaarta. Team Talk ayaa sidaas daabacaysa wararka ugu weyn suuqa ayaa